السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa Kareem Trading Official. إن شاء الله waxaan doonay maanta inaan isla eegno bal powerka ama awoodda uu leeyahay nidaamka ay ku trade gareyno runtii loo yaqaano RSS strategy ama Rabiina super strategy oo runtii ah strategy ama nidaam runtii aynu ka dhex keenay waxa loo yaqaano market structure-ka iyo candlestick psychology-ga. waxaan isku dayayaa inaan ka bilaabo $1 aan ka bilaabo isla markaana aynu qaadano ugu yaraan 7 trade ilaa 8 trade oo as a compound aynu qaadan doono. waxaan isku dayi doonaa in aan ka kala dhigo 2 days because inta badan waxa dhacda 1 day oo kale haddaad suuqa inta badan anigu aan ka helo shakhsi ahaan 4 fursadood ama 3 fursadood oo sax ah haddana session kale ayaan kusoo noqdaa kadibna sessionkaasaan trade gareyn doonaa. markaas insha allah waxaan ka kala dhigi doonaa 2 session oo kala duwan baan ka kala dhigi doonaa. It's not 2 days laakiin waxaan ka kala dhigi doonaa 2 session oo kala duwan gelinka hore iyo gelinka dambe oo kale ayaan ka kala dhigi doonaa. from $1 baan ka bilaabi doonaa marka koobaad $10 baan gaarsiin doonaa haddana $10 baan ka bilaabi doonaa waxaan gaarsiin doonaa maybe ilaa 70 ilaa 80 ayaan gaarsiin doonaa anigoo 3 ilaa 4 trade dambe insha allah qaadan doonaa. okay si aan runtii nidaamkan aan ku trade gareeyo ee loo yaqaano RSS strategy oo kooban oo duuban oo habaysan aan insha allah idinkula wadaago dhanka insha allah YouTube-keena soo booqo Kareem Trading Official kadibna ku biir ama ka mid noqo bahda ku xiran Kareem Trading Official. subscribe saaro soo kale gambalelkana furo si aad u hesho runtii courseskan aan ka hadlayo ama nidaamkan aan ka hadlayo istaraatiijiyadeena aan ku sharaxayo casharada ku jirana runtii aad ka faa'iideysan karaysaa. okay sidii doona inaan trade gareeyo waa lacagta euro jabai anoo ka bilaabaya $1 ayaan insha allah ka bilaabi doonaa. okay trade-kaas hadda waan qaadan doonaa. sababtan trade-kaas u qaatay waa waxa loo yaqaano strong level ayaan runtii ku qaatay oo ka mid ah ruleska aynu ku trade gareyno RSS strategy-ga. waayaan u qaatay trade-kaas sababtan u qaatay waxa ugu horeysa inaan xaqiijiyo waxa loo yaqaano levelka inuu runtii sax yahay oon ruleskiisa oo dhan xaqiijiyey kadibna trade-kaas reason-kaas ayaan u qaatay kadibna confirmation-kayga ayaan helay hore ayaan ka qaatay. okay lacagtan oo kale iyadana waan eegi doonaa halkan oo kale level ayaa iga muuqda oo calaamadsan doonaa another bears baan cayiman doonaa waa lacagaha aan ka doonayo lacagtaas markaa uu gareeyo inaan iyagana trades insha allah ka qaato. okay tan oo kale laftarkeeda waxaa iga muuqda dhowr level oo kala duwan oo kaasi ka mid yahay runtii calaamadsan doonaa. lacagtan haddaan eego okay sikina ayaa weli haray laakiin boqolkiiba 95 waxaynu aaminsanahay inaynu gareyn doono. reasonka ugu weynina aynu u aaminsanahay runtii waxa uu yahay okay withdraw baad moodaa. okay another trade balance baa ka qaado laakiin is not ma qaadan doono waxaan moodayna kanalkaasi draw igaga xidhmayo si aan trade-keyga kale uga qaato. laakiin ogow haddaad lacagta ruleskian aan raacayo aad raacdo waxaad heli doontaa trade-kaagu runtii 90% sax ayuu runtii noqon doonaa. okay next trade baan qaadan doonaa halkii dollar iyo intii aynu ku faa'iidnay ayaynu israacin doonaa. okay fursad baan daydayanaya aan qaato hadda lacagahan weli aniga fursada igama muuqdaan. fursadahan qaadanaya dhowr nooc bay isugu jiraan hadday noqoto reversalka hadday noqoto continuationka hadday noqoto trade lineka hadday noqoto pre-count-ka trade kasta waa qaadan doonaa keliya inaan helo ayaan runtii isku dayi doonaa confirmation-kana u waafaqo. hadda candlekaasi hadduu reversal candle noqdo waa qaadan doonaa good hadda candlekaas anigu waan qaatay ana u trade gareeyey as a higher option u trade gareeyey waay aynugu trade gareyna waxa loo yaqaano as a higher option. waxaynu as a higher option ugu trade gareyni waxay tahay candlestick psychology-ga aynu raacayno waxaa ka horeeya inaad xaqiijiso waxa loo yaqaano levelka. macna sideedaba waxaa la idhahdaa inaad trade qaadato oo macnaad tiraado trade-kan waan qaadanaya ama indicator isticmaal ama candle confirmation isticmaalo waxa ka horeeya ee la doonayo marka wax xaqiijisa waxa weeyaan confirmation-ka structure-ka. anigu waxaan soo xaqiijiyay hadda structure-ka ayaan ruleskiisii soo xaqiijiyey that's reason ayaan runtii trade-ka kaasa aan u qaatay oon runtii u trade gareeyey. okay waxaad aragtaa candlekan aynu gareynay inuu sida socota hadduusan dib usoo boodin laakiin nagas trade kale ayaan insha allah qaadan doonaa anoo markaasi ku qaadan doona as a compound. okay lacagtana waa weyn gareynay sida muuqata sikina ayaa haray markay dhamaadaan way weyn gareyn doonaa insha allah. okay good kaana runtii waa weyn gareynay waa israacin doonaa halkii $1 iyo profit-keeniba 3.53 ayay isku noqonaysaa. tan ayaan runtii isku dayi doonaa trade gareeyo click waan trade gareyn doonaa tanna waay aan runtii trade-ka noo trade gareeyey. reasonka aan u trade gareeyey waxa weeyaan haddaad runtii dhigatay ama aad garanayso waxa loo yaqaano leveliska si aan ugu trade gareyno
waad fahmi karaysaa reasonkan runtii tradekan u qaatay. There is no liquidity or there is no gap, ma jiro runtii halka ku jira maadaama uusan jirin reversal candle-kiina aan helay waa qaatay tradekeygii directly ayaan runtii u qaatay si shaki la-aana ayaan runtii u qaatay. Okay, si aan runtii casharadan oo badan ama istaraatiijiyadan oo sharaxayo idinkula wadaago runtii dhanka kanaalka, isku day inaad share garayso kanaalka, aad la wadaagto asxaabtaada ood runtii adigu laftarkaaguna aad ka mid noqoto akhyaarta ku xidhan. Okay, waxaad arkaysaa in lacagtana aynu weyn-garaynay walow inta badan lacagta markay saas oo kale noqoto ay salka ku xidhantay macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay iyada ayaa markii hore manipulation samaysay oo sababtay inay hoos u boodo. That's reason ayaa runtii ay sida taasi u dhacday. Another bear baan qaadan doonaa ama another trade ayaan insha Allah qaadan doonaa. waxaad moodaa lacagaha aynu qaadana badankoodu in leveliska ay u badan yihiin. Okay, targetkani waxa uu noqon doonaa targetkani kale aan ku gaadhaynay targetka $10. Targetkan hadda markaan gaaro waxa iigu xigi doona in aan bilaabi doono haddana targetka labaad ee ah 10ka intaan ka bilaabo aan kor insha Allah u socon doono. Sorry. Okay, weli fursada lacagahan kama arko, waan sugi doonaa insha Allah inaan fursad ka helo ayaan isku dayi doonaa. Okay, hadda tan oo kale aniga fursad baa iga muuqata loo yaqaano hadday sida taasa ku xidhanto breakout ayaa iga muuqda. Ruleska kale isha ayaan ka arkaa waa clear. waxaan tegi doonaa confirmation baan doonan doonaa 5 second confirmation ma tegi doonaa. I see waxaan aragnaa small rejection laakiin hadda ma arko confirmation candle, still ma arko. haddaan confirmation candle waayo waa iska daynaya traderka, ma qasbayo traderka ama se suuqa ma qasbi doono. ma hayo wax confirmation without confirmation ma trade garan doono suuqa because inta aan ku degdegayo waxaa iga fiican inaan lacagteeda ilaashto. hadda confirmationkii waa helay, waa qaatay tradekeygii halka kaas walow aad moodin uu late entry u tuuray inuu bartaas aan calaamadiga geliyaa bay ahayd sida saxda ah inuu areadaas inaga soo geliyo ay runtii ahayd. laakiin no problem maadaama inuu ruliskeenu saxan yihiin waxay aaminsanahay in ay markaasi noqon doonto waxa loo yaqaano sida aynu doonayno isla markaana success garan doono. haddaad sida tan degan u trade garayso nidaamkana runtii aad fahamto wax badan baa runtii ku maxay ahayd baaqan doona, madax xanuun badan runtii waa ku badbaadi doonaa oo runtii aad suuqa kala kulmi lahayd. Okay, u fiirso waa soo dhici doonaa. Okay, good. iyadana runtii waa weyn-garaynay. Okay, intaa markaynu hadda hayno waxaan samayn doonaa insha Allah isku dayi doonaa maadaama 4 trade oo xiriir qaadanay aynu doonayno in $10 ka bilowno. $10 baynu hadda soo gaarnay. waxaan ka saari doonaa lacagta akoonka lacagta ku jirta marka waan ka saari doonaa. waxaan ku soo reebi doonaa insha Allah 10ka ayaan ugu soo reebi doonaa si aynu insha Allah 10ka hadana uga sii qaadno. Okay, fursadahan aan qaatay waxaad arkaysaa 4tii fursadood aan qaatayba inaan u weyn-gareeyay sidii aan doonayay. masha Allah maadaama in 4tii fursadood u weyn-gareynay sidii aan doonaynay halkii kale ayaan insha Allah bilaabi doonaa. Okay, waxaad arkaysaa inaan kusoo reebnay $10 ama $10 runtii ku jiro $1 hore ay soo bilownay. Okay, 10ka ayaan hadana ka bilaabi doonaa. macnaheedu waxa uu ka dhigan yahay inuu hadda 10kan haddaan khasaare hadda waxaan aaminsanahay inaan loss gareeyay just $1. macnaheedu waxa uu ka dhigan yahay inaan loss gareeyo waxa loo yaqaano $1 aynu loss gareeyno bay ka dhigan tahay. Okay, waxaan isku dayi doonaa inaan 3 trade kala qaato insha Allah. inaan 3 trade kala qaato ayaan insha Allah isku dayi doonaa. lacagtan down trend ayay ku socotaa laakiin aniga fursad igama muuqato. Okay, tan oo kale hadda aniga fursad fiican ayaa runtii iga muuqata. haddaad lacagtan ila arkayso fursad fiican oo kaleera ayaa iga muuqda. welibana 2 fursadood baa runtii iga muuqda. fursadi waa fursadda hadda ay wado continuationka hadda halkan ka muuqata. fursadda kalena waxa loo yaqaano levelka aan ku sugayo inay isoo gaarto runtii si aan u trade gareeyo. hadda waxaan sugi doonaa pattern ayaan sugi doonaa confirmation in noqda. haddaan helo waa trade gareyn doonaa, haddii kalena waa iska diin doonaa insha Allah. Okay, lacagta laftarkeeda waxaad moodaa inaysan wax real ama wax level saxa aysan joogin. halkaas sare ayaan ku sugi doonaa insha Allah maadaama halkaasi level tahay. levelkan calaamadsanaya waxaan waafajinayaa ruliskii laga doonayay RSS strategy inay leedahay ama se runtii ay leedahay. Okay, hadda trade-ka waa trade gareyn doonaa hadduu sida taasa ku xirmo waa continuation candle. we're gonna take this trade. click ayaynu sii doonaa insha Allah 30 second-ka u dambeeya. Okay, good. waa trade gareynay. waxaad arkaysaa in akoonkeena policy is 0 noqday.
$10 ba aynu dhiganay macnaheedu aynu sababta 10 ka dhiganay waxay tahay waa riski laakiin maxay tahay macnaheedu $1 baa ka soo bilownay oo inagu akoonka ama suuqa waxaan ku leenahay just waa $1 waa $1 maadaama $1 tahay kaliya ruliskayga ayaan iska saxayaa ruliskaygu markay saxan yihiin traderkayga directly ama si automatically ayaan runtii u qaadan doonaa okay good waxaad arkaysaa si aynu doonayno insha Allah ku xirmi doono reasonka aynu ugu xirmayaana waxay tahay runtii suuqu wuxuu sameeyay wuxuu hore u soo sameeyay haddaad kor u raacdo ama dib u noqoto waxaad arkaysaa markasta oo candle continuation oo buy soo galayay in uu sameeyay waxa loo yaqaano another sellers ay soo galayeen haddana sidii baa dhacday sellers baa soo gali doona maxaa soo kale lagaga baahan yahay laftiga inaad ka haysatid sharciga aan ku sheegnay waxa loo yaqaano ay muhiim ka tahay inaad haysato momentum-ka ah inuu meesha joogo without momentum there is no ma jirto runtii rule ku shaqayn doona ma jiro okay $9 baan faa'iido filayaa $19.9 okay fursadana runtii waa weyn garaynay waa fursadeeni shanaad baan filayaa haddaysan khaldanayn oo runtii aynu qaadanayno okay another trade baan insha Allah isku dayi doonaa inaan qaato okay halka level ayaa runtii ku jira halkaas aad la aragto this is a levelka buriga ayaa la xisaabiyaa is not week lama xisaabiyo because weeka suuqa haduu gaaro waxay ka dhigan tahay suuqa inuu breakout gareeyay waxa laga doonayaa inaad isticmaasho rulekii breakout is not the level ma aha level inaad isticmaasho rulekii levelka ma aha waxaan gelin doonaa 19.9 baan gelin doonaa to waliba si aan u qaato another trade kale insha Allah aan u qaato qodobka ugu muhiimsan runtii waa inaad leedahay patient aad leedahay lacagta kale level bay soo gaadhay hadda trade by diyaar hadda trade kaas anigu ma qaadanaya maya hadda trade kaas ma qaadan karo way aan runtii trade kaas u qaadan karin sababta aan trade kaas u qaadan karin maxay tahay sababta aynan trade kaas u qaadan karin waxay tahay maba hayno runtii confirmation aynu runtii trade ka ku qaadano ma hayno maxaa loo baahan yahay sheekhu confirmation baa loo baahan yahay without confirmation waxaan kuu sheegay inaysan waxaagu shaqayn doonin si waxaagii maalin kasta u shaqeeyaan isticmaal confirmation-ka inagu isticmaalnaa waa maxay confirmation-ka inagu isticmaalnaa waa candlestick psychology-ga qaar ka mid a ayay confirmations u isticmaalnaa as a current trading markaynu joogno aynu isticmaalayno RSS strategy okay hadda suuqii ma samayn reversal candle laakiin wuxuu sameeyey the breakout maadaama uu breakout sameeyey waxaan isticmaali doonaa rulekii breakout-ka hadda qodobkii koowaad ee breakout-ka waan hayaa oo ah candle-ka jibiyey nooca uu yahay okay hadda trade-kaas waxaad aragtaa inuu soo noqday waa breakout laakiin I don't trade ma trade garin doona hadduu runtiisa taasa ku xidhmo okay hadda suuqaas muxuu sameeyey breakout buu runtii sameeyey waxay ii muuqataa kala breakout weliba inuu sameeyey laakiin candle-ka jebiyey haddaad dhigatay nidaamka aynu trade garayno candle-kaas kale looma qaato breakout looma qaato okay waan iska diin doonaa another trade baan insha Allah eegan doonaa hadda lacagtaan iska diinay waa tana maybe waa inta badan kor ay iska sii socotaa lacagaha kale ama se kor ay iska aadaan that's reason ayaan uga joogay ama se u qaadan waayay fursadeeda runtii oo uga gaabsaday mid kale runtii jirtaana waxa weeyaan haddii runtii nidaamkaagu shaqaynayo waxa saxa inaad fursada waayin inaad suuqa hor cararin ama se aanad daba cararin fursada runtii ma waayaysid haddii nidaamkaagu shaqaynayo hadda halka level baa ku jira sidoo kale strong level baa ku jira haddaad arkayso strong level baa ku jira reversal candle baan hadda arkayaa hadduu reversal candle noqdo waa trade garin doonaa haddii kalena waa iska diin doonaa okay haddaad u fiirsato isma okay reversal candle saxa weli ma hayo hadduu sameynayo wuxuu sameeyey maxay this candle is not reversal candle candle kani ma aha reversal candle runtii haddii candle-ka reversal candle aad u taqaano is not reversal candle okay waan iska bedeli doonaa another bear baan soo qabsan doonaa okay hadda lacagtani level baa joogtaa levelkaas ay joogto maxaan ka sugayaa reversal candle or breakout maxaan ka sugayaa reversal candle or breakout or trend flow saddexda waa ku qaadan doonaa hadday samayso hadda maxay samaysay clear breakout bay samaysay confirmation ma raacin doonaa markaas confirmation ayaan doonan doonaa 5 second confirmation welibana weli ma hayo 5 second confirmation still it's not 5 second confirmation yep hadda waan hayaa 5 second confirmation ha xirmo good hadda waa trade garan doonaa lacagtaas hadda lacagtaas waa trade garay way aan lacagtaas u trade garay sababta lacagta u trade garay waxay tahay waxaan helay waxa loo yaqaano levelkaygi waa kow waxaan helay levelkii sababtii looga jeediyo ama sidii loo jeediyo aan garanayo breakowda saddex waxaan helay waxa loo yaqaano confirmationkii waa 5 second confirmation waxaana intaasba ii dheer sharciga breakowdka inaan garanayo oo candle-ka jebinaya nooca uu yahay systemka uu jebinayo dhaqaaqa uu ku jebinayo inaan garanayo
okay kaleer hadda waa jabiyey waxaynu filaynaa inaynu weyn garayn doono maadaama ruliskeenu inoo saxan yihiin suuqana patient sameynay in badan aynu sugaynay oo aynu sugaynay inaynu runtii kaleer garayno waxaa runtii macna suuqa ku caawin kara waxa weeyaan nidaam saxan inaad haysato midda labaadna inaad samayso waqti saxa aad suuqa siiso oo patient runtii leedahay haddii aan patient lahayn fursado khalad ah aad runtii qaadan doontaa suuqana runtii waa las garan doontaa inagu hadda fursaddan waa weyn garaynay maasha allah sidaynu doonayna runtii waa noqotay okay waxaan filayaa inaynu marayno fursaddan aynu ku qaadanay rulka breakout-ka haddaad arkayso ruleskeena kale levelkuna sax yihiin all of this wax kasta runtii loo saxan yihiin 5 signal confirmation kuna runtii ha noqdo candle is not candle yaro easy iyo candle strong candle waa inuusan kaa noqon waa inuu kaa noqdo candle intermediate ama candle sorry candle medium waa inuu kaa noqdo oo dhexdhexaad runtii waa inuu kaa noqdo si runtii waxa ay runtii sax kugu noqdaan waxa lagu xisaabtamo fursadda maanta weyn garayso inaad berri weyn garan karayso laguma xisaabtamo inaad fursadda aad maanta weyn garayso maanta qura weyn garan karayso okay waxaan moodaa in suuqa uusan weli fursado badan ina siinayn insha allah one fursadaan ku dari doonaa insha allah hal trade baan ku dari doonaa hal trade dambaynu qaadan karnaa si aynu 7 trade saa ugu xidhno insha allah afar hore aynu qaadanay iyo saddexdan haddaan wado haddaan kaasi noqdo 5 signal confirmation waa qaadan doonaa kaleer gib hadda tradekaas waan trade gareeyay isaga waa inuu trade gareeyay sababtan hadda tradekaas u trade gareeyay runtii waxay tahay waxa loo yaqaano 5 signal confirmation kayga waan helay maadaama 5 signal confirmation kayga helay waa trade gareyn doonaa ama se fursadayda waa trade gareyn doonaa okay si runtii aan nidaamkan iyo casharada runtii aan kula wadaago isku day inaad kanaalka subscribe garayso sidoo kalena share garayso gaarsiiso walaalaha kale ee runtii ku dhiban cilmigan tradingka ee IQ optionka runtii la dhiban runtii isticmaala runtii waxaan shaqaynin ama runtii isticmaala lagu haysto runtii signalska iyo runtii waxaan shaqaynin si ay runtii uga faa'iideystaan isku day inaad share garayso dad badan runtii gaarsiiso markasta oo runtii dad badan gaadho waa markasta oo runtii casharo badan oo tayo leh ay noo soo geli doonaan runtii okay waxaad arkaysaa in runtii tradekana aan weyn garaynay saad arkaysid maybe waan weyn garaynay maasha allah intaas insha allah iskaga joojin doonaa okay kale waa weyn garaynay isna kuma xidhmin levelkeeni waa ka kormaray levelkeeni ama second ayaa levelkii ama baydii ka xidhnay kadib baa weyn garaynay maasha allah 97 ayaynu gaarsiinay halkii dollar awoodda uu ku leeyahay istaraatiijiyadeena waa taasa haddaad runtii qaadato ama company isticmaasho si fiican baad u isticmaali karaysaa risk management keliya ayay kaaga baahan tahay inaad ku darto maasha allah intaas insha allah iskaga joojin doonaa nidaamka aynu trade garayno iyo sida aynu trade garayno si aan insha allah uga soo duubno casharo kanaalka subscribe gare dadkana u share gare u gaarsii intayna casharkana kale ku kulmi doono insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala